waxaanu leenahay maalinta 18 May ee qarannimadii aynu xamar ula cararay soo celinay hambalyo awguuriyo ilaahu tii khayr iyo barwaaqo iyo horumar la soo noqnoqotay ilaahay nooga dhig waxaan intaa raacinay maalintaa ma kala lihin maalintaa mid baynu nahay axsaabtay inta kaloo dhan isxagaagta laakiin maalintaa walaalaatiin mid baynu wada nahay kubadda meel baynu ku wada dhalinay qarannimadeennana waa ku ilaashanay inta kaloo dhan isxagxagta cabdulqaadir waxaan leh eraygii ahaa maanta haaraan la gaadhay dee waa idin gaadheeno ilaa intaa cibro keenaysaan maalintaa waa idin haaraamaynaa waa idin iifan markaa waxaan leenahay cabdulqaadirow maad orod yaraa jirin orodka ka sii badan ilaahayna waa kugu guula waa idinku guulaynay waddanina maaha waddani waa wada jooga wuxuunaanu haysanaa waa ciro iyo halkan waanu maalinta qaranka ka arag waaya waxaan jeclahay haddii aynu caawaysunni inaynu xusno mujaahidiintii qarankan u soo halgantay mujaahidiinkii qarankan u dhimatay u dhaawacantay jiifa qaar gurguurtaan qaar caloosha u jiifan ilaahay ha ka jasaaysiiyo ilaahay ha ka jasaaysiiyo wixii aynu la qaban karrana faryaano aan la qaban way mutaysteen aan la qabanno iswaba yimaadeen haddii kale marka mudane madaxweyne iyo madaxda qaranka iyo marti sharafka waxaan leeyahay soo dhowaada khusuusan shantii Soomaaliyeed ee calanka loo ordaysay ee 60kii lahayd waryaala midnimooy wargaabay halnaqaybirnina maanta malaa waxaa inaga maqaninoo Muqdisho afartii kaleba waa ku joognaa innagoo raalli kala ah oo aan lahayn waryaala nagu soo biira ee halkiina idinku jecel ilaahayna ha idinku barwaaqay ilaahayna ha idinku barwaaqay sidaa bay inoogu badinaysa halkaynu mid ku koobnaan lahayn in aynu 5 meelood wax iska tarro oo isu gurmadno oo isu dabqanno waxaan kaga baxayaa hadal ilaahay tii soo noqnoqotaa ka dhig ilaahay tii wanaagiyo khayr la soo noqnoqota ha ka dhig